aragtida toddobaadka iyo murtida haweenka waxaynu ku soo xilaynaa shacabka afkan halkan ka baxaya waa afkii shacabka Somaliland waxaanaynu ku soo xilaynaa aragti bixin waxaynu u diraynaa iyo fariin shacabka Somaliland meelay joogaanba waxaan kula dardaarmayaa kelmaddan soo socota taasoo ah bulsho yahay gadaamani marka ay idin garataan danta guud si lagu helo gaarna waa u dhergaysaan mujtamacow bulshaday haddii dan guud la waayo dan gaarana la heli maayo waxaan u dhaafayaa maanso kale oo hore shaashadda u gashay laakiin maantana aragtida toddobaadku inagu soo celisay taa waxaa la yidhahdaa qofkii xili noo qabtaa maansada markii hore waxay iga noqotay ninkii xili noo qabtaa haddana waxaan xasuustay inaan bulshadii barka tegey sida dumarka oo kale ama haweenka ama hooyooyinka waxaana markiiba qubigu yidhi waxqabadka hooyooyinka ahna marmada koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Aamina Welis iyo wasiirkii waxbarashada adeerna ah wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan qiimaynta labada ayaa markiiba qubigu jiri marka bulshadina cali gelin baan isugu noqonaysaa haddii dumarkii ka tagto ilaa intii dagaalka iyo sanamtu iyo faqashtu dhacayna waxaa howlaha qoyska aad ugu wanaagsan iyo bulshadaba hooyooyinka dabeedna sidaas waan ka bedelay ninkii xili noo qabtaa waxaan ka dhigay qofkii xili noo qabtaa xasuus buu reebayaa odaygu waa xaajaqaad xigmadii waa ruug caddaa xisbigu waa mahadsan yahay